wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa jimce 19 Juun saacada Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 5tii galabnimo oo gowa barnaamijka falanqaynta jimce maanta waxaanu dhageystayaal kula fakuraynaa qodobadii ka soo baxay wada hadaladii Djibouti ku dhexmaray xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland arrimahan qorfooyin doona waxa kamid ah su'aalo ay kamid yihiin kalsooniintii hore ka badan ma la oran karaa haatan way ka soo baxday shirkii Djibouti qodobada heshiiskan ka soo baxay iyo kuwii hore waxba badan kuma kala duwana maxaa keenay wax inta dhaafsan in laga wada hadli waayo maxay u hergeli waayeen wixii hore uga soo baxay heshiisyadii hore loo gaaray daliisha hakadka hirgalka heshiisyadii hore yaale haatan waxa lagu heshiiyay in la helo cid hirgelintooda damaanad qaadaysa ma la helay haatan maadaama ay jiraan deegaano isku hayaan Somaliland iyo Puntland hadiyo goorna maamulka Puntland ku gacan sayra wada xaajoodyada noocaas ah garma tahay in xukuumadda Soomaaliya si gaar ah uga talageliso wada xaajoodyada Puntland mise waa gaf in la yiraahdo xukuumaddii dalka taladiisa ay say maamul goboleed isku dhereeriyo labada dhinac ee wada xaajoodka wada ama maxay ugu dhiiran laayeen inay ka hadlaan arrimaha adag ee laga fursan laayay ee wada joog ama kala dhaqaaqa in la sameeyo xeer anshax oo lagu hago wada xaajoodyada la isla qaatay ma la qoray arrimaha mise waa wali su'aalahaas iyo qaar kale oo mawduuca khuseeya ayaan dhageystayaal ku qaadaa dhigi doona barnaamijkan oo ay ka qayb galayaan marti mugeeda leh oo arrimahaasi nala qorfayn doonta bal marka hore see warkii dunida iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac mahadsanid nagaashe saynis yahanada Talyaaniga ayaa ku waramaya in biyaha wasakhda ee ay sii daayaan 3 magaalo oo waaweyn laga helay cudurka coronavirus bila ka hor inta aan laga shaacin kiiskii ugu horeeyay dalkaasi macadka caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in tijaabadii laga qaaday siwajka magaalada Milan iyo magaalada Turin laga helay viruska bishii December ee sanadii la soo dhaafay dalka Talyaaniga ayaa wadankii ugu horeeyay ee cudurka ku faafa marka laga soo tago dalka Shiinaha waxaana kiiskii ugu horeeyay dalkaasi Talyaaniga laga shaaciyay bishii Febraayo Giuseppina Le Rosa waa saynisyahan Talyaani ah oo baaritaankan horkacaya waxa uu sheegay in macluumaadkan la helay ay tahay mid sax ah oo cadeen ay u hayaan waxaana uu sheegay in natiijooyinkaasi ay la jaanqaadayaan cadeymo ka soo baxaya dalal kale oo sheegaya in laga yaabo in COVID-19 uu wareegayay ka hor inta uusan Shiinaha ka dilaacin bishii December hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax heshiis ah aan laga gaarin wada hadallada madaxda midowga Yurub ay ka yeelanayeen balaayiin dollar oo loogu deeqayo ka soo kabashada cudurka safmarka ah ee COVID-19 saddex meelood laba meel lacagtaasi waxaa loo bixinayaa si caadi ah halka inta kalena ay deen ahaan u bixin doonaan dalalka balse wadamada Sweden, Denmark, Austria iyo Netherlands ayaa ka soo horjeeda bixinta lacagahaasi waxaana ay sheegayaan inay aad u tiro badan tahay iyagoona ku adkeysanaya in lacagahaasi dib loo soo celiyo oo ay deen ahaan u bixiyaan laba muwaadin oo Kanadiyaan ah ayaa lagu soo eedeeyay in ay jaajuuseen Shiinaha Michael Kovrig oo diblomaasi hore ah iyo Michael Spavor oo ganacsada ah ayaa gudaha dalkaasi Shiinaha lagu xiray bishii December ee sanadii 2018 maalmo uun kadib markii Canada ay qabatay mid kamid ah xubnaha sarsare ee ka tirsan shirkadda teknoolajiyadda ee Shiinaha laga leeyahay ee Huawei dad badan ayaa aaminsan in tallaabadan uu Shiinaha qaaday ay tahay mid argoosi ah xeer ilaaliyayaasha Shiinaha ayaa sheegaya in raggan ay ku lug leeyihiin basaasnimo isla markaana ay baahiyeen sirta dalkaasi guddiga qaramada midoobe ee ilaalinta hubka nukliyeerka ayaa meel mariyay qaraar ay ugu yeerayaan in Iran ay joojiso beeninta in ay jiraan goobo aan la shaacin oo lagu keydiyo agabka nukliyeerka diblomaasiyiin ka qayb galaya kulanka ka dhacaya Vienna ayaa sheegay in qaraarkan Iran looga codsanayo in ay u ogolaato khubarada nukliyeerka in ay booqdaan goobahaasi si ay u soo cadeeyaan dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Iran ayaa diidan in la ogolaado xarumahaasi waxaana ay ka digtay in loola yimaado qaraar noocan oo kale ah qaraarkan waxaa soo saaray dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka
saraakiisha koonfurta hindiya ayaa lagu soo waramayaa in ay bandow 12 maalmood ah ku soo rogeen magaalada Chennai iyo degmooyinka u dhow kadib markii tirada kiisaska cudurka COVID-19 ay kor u kaceen. dadka degan deegaanadaasi ayaa loo ogol yahay in ay banaanka u soo aadaan oo kaliya adeegyada asaasiga ah waxaana sii furnaan doona dukaamada lagu iibiyo raashinka. ugu dambeyn in ka badan 40 tan oo gargaar degdeg ah ayaa u duulaya dalka Yemen si loogu caawiyo dadka ay dagaalada aafeeyeen oo cudurka corona ku sii faafayo. gargaarkan ayaa la gaarsiin doonaa magaalooyinka waaweyn sida Sanca iyo Cadan waxaana gargaarkan ay isugu jiraan qalab caafimaad iyo daawooyin. warkii caalamkana waa naga inta nagashay. aad iyo aad bay u mahadsantahay Samiira Cabdullaahi Jaamac oo warkii galabnimo inoo marinaysay taasi hay'adda dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waa tahay dhageystayaal sidii aan horeba idin sheegay qodobada maanta aynu ku gorfaynayno barnaamijka jimcuhu gabi ahaanba waxa ay ku saabsan yihiin wadaxaajoodkii Soomaaliya iyo Somaliland ku dhex maray dalka Djibouti iyo waxyaabihii ka soo baxay iyo sida ay u hirgeli doonaan. barnaamijka waxaa ka qayb galaya oo arrimahan aan hore u soo sheegnay ila gorfayn doona dhageystayaal Sharmaarke Garaad Saleebaan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Muqdisho jooga ku soo dhaw barnaamijka mudane. waan dhawahay walaal أنا سلام يا بعد BBC ذا وندوه. waxaa kaloo isna ka qayb qaadanaya barnaamijka Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland oo Hargeysa jooga. Axmed Yaasiin ku soo dhawaada barnaamijka mudane. وندوه أحمد عبد الناصر. adiga mudan waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya dhageystayaal Cabdirashiid Xaashi oo ka tirsan maxadka daraasaadka ee Heritage oo bal hadda isaguna inala gorfayn doona arrimahan oo ka eegi doona dhanka taxliilinta haddii ay labada oday ee kala aragtidii si isu sheegaan oo isaguna barnaamijka inoogu martay. Cabdirashiid ku soo dhaw barnaamijka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu gudagelaynaa barnaamijka dhageystayaal bal su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo in aan saddexda oday mid walba gaarkiisa u weydiiyo oo iyaduna ah su'aal isku mid ah aan ku horeysiyo Cabdirashiid Xaashiye. Cabdirashiid oo ma la oran karayaa kulankii ugu dambeeyay Djibouti ku qabsoomay waxa ka soo baxay oo ka dhashay kalsooni ka badan intii hore ay labada dhinac isu qabeen. waad mahadsan tahay runtii kulankaas waa loo baahnaa sababtoo ah waqti fiican bay isku heleen madaxdii sare iyo dadkii khubarada ahaa iyo xataa Djibouti oo dal walaala ah labada dhinac kalsooni ay ku qabaan iyo adduunkii iyo Mareykankii iyo meesha joogay oo shirkana runtii lagu ku lahaa iyo xataa Ethiopia ayaamahan dambe shirkan ku shaqeynaysay Abiy Ahmed in la isku yimaado oo la isdhageysto oo la iscalool ogaado waa loo baahnaa oo dadka loo kala sheekeyn ama la istuumin. marka ugu yaraan waxaan dhihi karaa qofkaas meesha ka laabtay asagoo intii uu ogaa ama tuunsana in ka badan ogaaday. marka inkastoo aan anigu aragnahay in breakthrough la sameeyey ama guul weyn shirka laga gaaray oo markii hore wixii la sheegayay laakiin waxaan ka wadaa kalsooni intii hore ka badan ma kala soo noqdeen dhan waliba waxay doonaan ama ha lagu heshiiyo ama la isafgaran waayey kalsoonidu intii hore ma ka korodhay mise way ka yartahay. su-aasheeda baan jawaabta sii wato waan jeclaan lahaa inaad gabdhaha decision aan dhamaysto. maxaa la yidhahdaa xog baa la kala kororsaday laakiin kalsoonida haddii lagu ballamay mar labaad in la kulmo oo weliba waqti la qabtay gudiyaalan la saaray waa laga dhadhansan karaa in dee kalsooni iyo hawsh in lasii wado in la dareensan yahay laakiin sidii la sheegayba dee ma ay fududeen markii u horeysa fooda la iskeliyey bay ahayd. marka overall aniga waxaan arkaa kulan loo baahnaa inuu ahaa. aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid. waxaan siinayaa hadalka Sharmaarke Garaad Saleebaan. xildhibaan adiga siday kula tahay kalsooni intii hore ka badan halkaa ma lagala soo noqdo ma dhisantay mise waa maya? waa qabaa kalsooni fiican in meesha lagala soo noqday labada dhinacba sida walaalkii Cabdirashiid sheegay waxaad ka garan kartaa miisaanka wujuudka ka qayb gashay hadday noqoto labada dhinac oo dowladda federaalka ay hogaaminayeen madaxweynihii wasaarihii iyo gudoomiyihii golaha shacabka oo saddexda mas-uul ee ugu sarreeya. marka waxaad ka fahmi kartaa miisaanka iyo culayska uu lahaa wada hadalkaas iyo in miradhal ay ka yimaadaan.
haddana waxaan rajaynaynaa maadaama ay guddiyadii kusoo heshiiyeen in shirarkii lasii socdo oo guddi hoosaadyo loo saaray 15 casho kadib waxaan rajaynaynaa in guddiyadaasi ay wax midho dhal ah ay soo saari doonaan sidoo kale waxaad ka garanaysaa shirkaasi inuu muhiim yahay oo kalsooni ay abuuratay dowladaha kasoo qayb galay oo geeska africa oo etoobiya ugu horeyso iyo walaalaheena jabuuti oo iyaduna shirka martigelineysay marka waxaan qabaa kalsooni fiican iyo khibrad fiican baa laga soo faa'iiday meeshaas aad baad u mahadsantahay xildhibaan sharmarke xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaan isla su-aashaa weydiinaya axmed yaasiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام يا بي بي سي dhageystayaasha iyo akhyaarta kala qayb qaadanaysa wada hadalkan iyo doodan kalsooni intee le kalsoonidu iima muuqato kalsooni buuxda oo ka badan kuwii hore in lagala soo noqday sababtu waxa weeye annagu xaggayga Soomaaliland ahaan marnaba dee waxaanu saxeexnay ama ballan qaadnay kama aanan bixin mar walba waxay sartu ka qurmaystay xagga dhinacayaga kale ee walaalaha iyo Soomaaliya marka waxa ninka daraartii maskaarka habeenkii xarigu ka didaa ninka ballamihii hore oo dhan ka baxayay maanta inuu tan fulinayo kalsooni badan oo xaggan lagala soo noqday iima muuqato sababtu waxa weeye qodobo hore lagu heshiiyay meesha yaalla qodobadii siday u dhanaayeen Soomaaliya way jibisay oo way ka baxday hal qodob annaga xaqaygan kama naabeen marka waan isu kalsoonahay annagu wixii aanu ballan qaadayna fulinay laakiin kalsooni kama qabno ay dhinaca kale ku fulin karaan waayo wixii horeba way ka baxeen aad iyo aad baad u mahadsantahay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle aynu sii wadna dooda maadaama aad hadalka adigu ugu dambaysay waan kugu bilaabayaa haddana mar kale heshiiskan xataa qodobada ka soo baxay kamay duwanayn kuwii hore wixii ka soo bixi jiray ma isleedahay haatan way hirgelayaan oo kuwii hore sidii ay u fuli waayeen haatan waa laga raysanayaayo wax dhaamaa ka soo bixi doono calal aqal inay hirgalaan hadalkayga sidii aan ku horreysiiyey heshiiskan maalinta dhaweyd la gaadhay maadaama gobashana madaxweyne Soomaaliyeed oo Ismaaciil Umar Geeliye fidiyey maadaama ay dhagxumo iyo magaxumo ku tahay in ummadii halkaa isugu tagtay ee la isugu keenay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland way ku kala tageen to ay ceeb tahay waxa la yiraahdo in wajiga la dhowrto oo baa lagu soo gunaanadeeyay in muuqato wax fulinaya ama yididiila oo meesha inay heshiiska qodobadani fulayaan ima muuqato anagu haddaan Soomaaliland nahay waxaanu mar walba taagnay wargardiid waa la diiday garbaanu qabnaa wadadayadu way cad tahay leexleexad male wadadayadu waa taa marka de ma awoodo ama quwado kale oo qoorqabad wax ku fuli karaan ma jirtay Soomaalida iyada u taala sida ay u kala fulinayso waxay ku heshiis ama ay ku kala baxayso marka waxaad leedahay niyad sabab ay wax wixii ka duwan inay soo baxayaan ma qabtid ba ay weeyaan aragtidaadu waan gartay xildhibaan sharmaake garaad saleebaan arrinta uu axmed yaasiin sheegay ma kuu muuqata haddii ay kuu muuqatana dhaliishaas cidda yeelanaysaa ma tahay cidda uu dhaliilayo walaalo ma qabo dhaliisha waxaan qabaa dhinacooda inay wax badan ka socon waayeen oo wax kastoo heshiisoo la gaadhay dhinacooda diiday ay noqotay sidoo kale dowladda hadda joogta gobolada waqooyi waliba waqooyi galbeed ee Soomaaliland la yiraahdo waxaad moodaa waxyaalihii arrimihii masiiriga ahaa inay ka leexleexanayaan oo ay wajahayaan arrimo yaryar oo minor ah oo shakhsiyaad ku saabsan iyagoo inta badan wada hadallada heshiisyada noocaas ku andacoonaya inaan qof ka soo jeeda goboladii waqooyi oo dhammaystiran oo ay ku jirto Soodhi Sanaag oo kale iyo Awdal oo kale inay ku andacoonayaan yuusan hebel ka soo qaybgalin iyo yuusan hebel imaanin marka waxaan qabaa heshiisyadaasi way socon lahaayeen haddii xagga Somaliland ay iman lahaayeen leadership fiican oo ka fakariya danaha ummadda Soomaaliyeed iyo danaha shacabkiisa intaba sidaad og tahay dowladdan hadda joogta waxay noqotay dowladdii koowaad oo cudurdaar ama ka bixisay ama raaligelin ka bixisay waxyaalihii ku dhacay Burco iyo Hargeysa sharmarke xildhibaan sharmarke aan ka dhex galo xildhibaan sharmarke waxa aan ka hadlaynay aan ku weydiiyey su'aashu waxay ahayd wixii hore fuli waayay dhaliisheeda axmed yaasiin wuxuu u saaray dhabarka dhinaca Soomaaliya adiguna waxaad leedahay dhinaca Somaliland baa dhaliilaha iska leh
laakiin waxaad ku sababaynaysaa waxa weeye in ay marka hore intaan laba wada hadal ay shuruudo dhigeen shuruudaha haddii dhinacii kale aqbalay oo uu ka soo baxay markii la is hor yimid wixii la isla meel dhigay ayuu isagu taagan yahay inay dhinaca kale fulin weeyeene sidaa kulama muuqato miya adiga maya ilama muuqato maxaad ku sababaynaysaa waxaan ku sababeynayaa horta mar kasta oo dowladaha labada dhinac oo mar kasta wada hadallada u socday ama dowladihii hore federaalka ee xasan sheekh shariif hogaaminayeen iyo tan hadda joogta iyo maamulada somaliland ka telinayay horta mar kasta waxaa ka imanayay faagyu ah doorashooyin inay dhacdhacayeen aan isku waqti ahayn oo ciladuhu halkaa ka imanayeen waxaa kaloo iyaduna jirtay cabashooyin ay cabanayaan dadka SSC khaasatan dadka dhaqaalaha iyo humanitarianka iyo maalgashiga ee deegaanada sool iyo sanaag oo mucaawinadoodu 100% loo soo mariyo maamulka somaliland jooga oo aan haba yaraatee 1% ka gaarin dhaqaalaha la siiyo marka runtii waxaan odhan karaa somaliland weli dadkeedu waxay ku haysaa caburin iyo cagajuglayn iyo takoorid marka uma layn maayo xagga federaalka inay ka socon weyday xagga somaliland ka socon weyday maadaama isbedelo badanna ay ka dhaceen dowladda federaalka laftirkeeda iyo xagga maamulka somaliland aad baad u mahadsantahay xildhibaan sharmaake su'aalahaagaas iyo midab ku daraba aan weydiiyo axmed yaasiin sheekh cali ayaalo oo dhinaca kala axmed yaasiin waad maqlaysaa xildhibaan sharmaake garaad saleebaan dhaliisha sida uu dhigaya oo qudhiina idin dhaliilayo laakiin dhaliilihiisa waxaad moodaa inay yara baahsan yihiin idinku miyaydan aqbali karin dhaliilaha uu sheegaya inay wax ka jiraan oo aad diidan tihiin dadkii waddanka idinla lahaa in ay ka qayb galaan arrimahan marka laga hadlayo miyaydan taasi dhaliilahayn mahadsan yahay xildhibaanka garaadka waa salaamaya waana ku mahadsan yahay laakiin beenaale markhaatigiisu nin dhintay kashadaabaa la yidhi qodobaa lagu heshiiyey dowladdii xasan sheekh iyo axmed siilaanyo ay ku heshiiyeen jabuuti heshiiskii u dambeeyey la galay waxaa ka mid ahaa in maamulka hawada maamul si midaysan loo qaybsado waxa ka mid ahaa inaan deeqaha iyo wixii development ama horumar ah aan la iska carqaladay waxa muuqato dee sida cadceedda u cad inay goosteen inay iyagoo ka faa'iidaysanaya aqoonsiga caalamiga ay haystaan deeqdii hawada ee lagu heshiiyey ay muqdisho la fadhiistaan waxaa u dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo u hanjabayey shirkadda DP World ee maalgelinaysa dekedda berbera shirkaddu waa shirkad ganacsi oo dowlad carabeed leedahay oo maalgelin $500 bilyan ah gelinaysa dekedda berbera dekedda berberaad waa dhul Soomaaliyeed waa dhul Somaliland leedahay lacagta galaysa waa lacag ajnabiya dhulka ka faa'iideysan doona iyo ummadda ka faa'iideysan doona ummadda Soomaaliyeed marka horta xikmadi ma taalo muqdisho maanta oo waa taa cadaawad baan u hayaa ciddii dhaqaalaynaysa Somaliland la baxday haddana midnimo qasabaan ka doonayna horta caqliga muqdisho iyo madaxdeedii taallaa waa taa waxaan anagu haynaa qodobadii aanu ku heshiinay sidoodii inay uga wada baxeen dhaliisha uu walaalkay garaadku sheegayo sool iyo sanaa kaga hadlayo waxaan qabaa Somaliland iyadoo isu dhanbay go'aansatay inay madax bannaanideeda iyo dowladnimadeeda la soo noqoto Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii lagu heshiiyay hadduu ceeb keeno calaacal ma keeno deeqaha iyo arrimaha uu garaadku ka hadlayo waxay ila tahay inuu dee goobjoog hadduu u yahay waa ninkii uba qaadi lahaa waan gartay aan ka dhex galo axmed yaasiin shaqaye واتاي أحمد ياسين شيخ علي اللي مركلا كوسين دونا هذا الكلام نبى واحد نجيسنا عبد الرشيد أو يسقون نقل قريب قليل برنامجك عبد الرشيد هو نجيسنا يسيل بدو هذا بس إذا هذا الله داود جينا متبودين عكلا ليش نبر كوساري هذيك السيدة يكوجو مقطع ما دام تاي أقوياء نحن هذا دراسات بدن كسمية سياسة دينا كسومالي دا يولنا السعودية هشيسية دا سيمدوين كيسو السعودية ليش إن يفلوا وين قضى بدي هرا لوجوشي ليش ودا يتصارسا horta waa mahadsantihiin waxaa isleeyahay su-aal adag baa dee horta meesha taalla oo Somaliland iyo Soomaaliya ama xukuumadda federaalka Soomaaliyeed oo hadda shirkaas ka qayb gashay iyo Somaliland hawl adag bay isku hayaan qolana waxay rabtaa inay tiraahdo waan madax banaanidan qaadanay fasiilnay kadibna adduunkan waa ka raadsanayna inta naga madax banaanidii weli maan gaadhina wixii yaraa isla meel dhigeen baan ku weydiiyey dhaliisheeda cidda leh
walaalow haddaa hadalka isiisada daada ii ogolaan inaan ka jawaabo waa isaga tegaya macnaha sababto ah dee qofka haddaa hadalka siisada ha galo haddaad jawaabta siin karinna dee macnaha hadaf haye xaal qaado inoo wad maya iska soco su-aalaha odayaasha kala siisay anigu waan isaga baxay ado maanta aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaqna waad u leedahay inaad ka baxdo waa tahay labadoodiibaa dooda sii wadi doonaa oo aan hadda usii qaybin doonaa xildhibaan sharmaarke garaad saleebaan ayaan su-aasha kala weydiinayaa xildhibaan waad maqlaysay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle sidii uga jawaabay arrintaas dhaliilihii midkiinba dhinac buu saaray aynu ka gudubno hadda aynu u ruqaansano qodobka xiga ee aynu doonayno inaynu halkaasi kasii wadno haatan waxaa muuqata in lagu heshiiyey in wixii hore caqabadihii hakiyey laga gudbo la islana qaatay in la helo cid damaanad qaada hirgelinta heshiisyadii jabuuti lagu gaadhay oo u muuqda un inay kuwii hore yihiin arrintaasi ma hirgelaysaabay kula tahay arrintaas haddii somaliland kooxda ka talisa laga helo damaanad rasmiya waxaan u malaynaya xagga dowladda federaalka way ka hirgelaysaa walaalkii wuxuu sheegay axmed yaasiin in somaliland ay 1991kii ay isla qaadatay koritaanka anugu taa ma qabo somaliland meel iskula qaadatay koritaan oo abti dad laga qaaday ma jirin weliba qaarta sooli sanaag lagama qaadin waa dhanka dhaqaalahoo kale waxaa ka jira cabashooyin badan oo ah haddii somaliland sooli sanaag macaawinooyinkooda loo mariyo inaysan haba yaraatee waxba gaadhsiinaynin taa annagu waxaan ka qabnaa in special arrangement sooli sanaag loo sameeyo si ay dadkaasi waxay xaq u leeyihiin caawinada caalamiga iyo humanitarianka ay u gaadhaan anu waxaan qabaa arrimaha hadda ugu muhiimsan ee laga hadlayo issuegan yaryar waa ka weyn tahay arrinta ugu weyn ee dooda ah ee gorgortanka iyo muqadaska ah waa midnimada soomaaliya inay guddiyadaasi hadhow ay ka wada hadli doonaan dowladda federaalka dhinaceeda waxay diyaarisay khuburo heshiisiin ah oo daraasooyin cilmi ku salaysan iyo taariikh ku salaysan bay dhankaa u diyaarisay in badan laga wada shaqaynayey guddigii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo u magacaabay 2019kii arrintaa daraasaddaa soo samaysa oo dib u heshiisiinta labadaba ka qayb gasha sidoo kale madaxweynuhu wuxuu bixiyey raaligelin buuxda oo uu siiyey haddii jamhaddii snm la odhan jiray ee beriga waqooyiga kooxaadkan barco iyo hargeysa ka dagaalamaysay iyo dowladdii gacaanka meeshaas ku cadhaatay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay waana madaxweynihii koowaad ee bixiyey waxaan ku dhahdaa raaligelin si public ah intii 2000kii soomaaliya dib dowladdeeda loo dhisay marka anu waxaan qabaa heshiisyadan yaryar way fulayaan laakiin waxaa ugu muhiimsan in arrinta masiiriga ah oo ay somaliland ka gabanayso oo ah midnimada yar oo waqooyi ay joogaan waqooyiga ka mid ah ay qabaan oo dadkii majority kala muquuninayaan xoogna doonayna ku caburiyaan baan qabaa dadka arrintaas inaan loo ogolayn inay codkooda cabiraan oo aan loo ogolayn inay codkoodana cabiraan sheegaan rabitaankooda waxaan ognahay aad baad u mahadsantahay xildhibaan sharmaake garaad saleebaan su-aalahaaga qudhooda aan weydiiyo axmed yaasiin sheekh cali ayaanle xildhibaanku waxa uu yidhi wixii jiray oo dhan in toos loo abbaaraa qurux badan xaal buu ka bixiyey madaxweynaha federaalka soomaaliya dhibaatooyinkii dhacay ee ka dhacay gobollada somalilan ee ay tirsanayeen arrintaa inaad ku qanacdaan oo aad aqbashaan oo aad idinkuna dabacsani muujisaan ood usoo hilowdaan midnimada oo aad ka hadashaan maxaa ku jaban haddii meeshu ay tahay somalilan tacdiyadii dowladdii maxamed siyaad barre ay ka geysatay ayuunbaa un xaal laga bixinayo dabadeedna qadiyadeedu intaas ku dhan tahay aniga saa iguma muuqato number one somaliland ummadii deganayd baa isu timid oo dee waa taariikh qoran oo shir la yaqaan baa lagu go'aamiyey oo weliba loo dhan yahay marka xaqiiqdan waxaa la yidhi cunsur carabka lagama dhowro somaliland taariikh bay leedahay waxaan xasuusinayaa walaalkay sharmaarke soomaali jacayl iyo niyad sami iyo jibbo ayaa lagu tegay muqdisho oo dowladdan oo la wado laa yaa garaad masaladii tiri waxay ahayd garaadkii gobolka uu ka soo jeedo xildhibaankaasi ka soo jeeday ee lahaa war dowladnimadeenna aynu halkan ku haysanno 6 bilood aan haysanno in laga diidanaa soomaali jacaylka iyo wanaagga looga diidanaa
qadiyadda markay noqoto xaal baa laga bixiyay ma laga noqonayaa dadkii ugu muddakarsanaaye shirkii burcon 91kii ku go'aamiyey waxay ka soo jeedeen gobollada galbeedka ee awdal ay ka mid tahay iyo gobollada sool iyo sanaag oo markaa u arkeeyey ururkii SNM ee jabhaddii SNM ee waqooyi ka dagaalamaysay u arkeeyey inaanay dani ugu jirin in iyaga SNM iyo USC wax dhex mara aan lagu dhaqin gobollada waqooyi ay noqoto masiir ummadeed oo ummadii Soomaaliland deganeed ay go'aan ka gaadhay tan uu leeyahay xildhibaanku dowladda federaalka madaxdeedu way fulinaysaa aniga ima muuqato farmaajo sanadkii si u dambeeyay buu ku jiraa ninka loogu taag waayay war dowlad goboleedadan yaryar ee dowladda ka mid ah leeshii Jubbaland ka daa dagaalka Puntland ka daa dagaalka waxaan jecelahay Axmed Yaasiin waxaan jecelahay inaynu ku koobno doodeena labada dhinac ee inoo haydaynaan gobolada kala gelin Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka dirgaha loogu taag waayo iyo geela loo diro horta ninka Puntland iyo Jubbaland la heshiin karayay in Soomaaliland heshiis la galo lagama filayo tahay waa aad baad u mahadsantahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale Puntland baad carabka ku dhufatay Puntlandna waxay ka mid tahay maamul goboleedyada Soomaaliya kuwii ugu waaweynaa oo loogu hordhisay had iyo goorna waxa ay ganafka ku dhufataa oo ay si caadi ah ugu gacan saydhaa wada xaajoodyada labada dhinac dhex maraya arrintaasi talow ma garba oo Puntland in laga talageliyo oo dowladda federaalki ay ka talageliso marka laga hadlayo arrimahan ay la hadlayso Somaliland maadaama ay isku hayaan Somaliland iyo Puntland gobolada bariga ee Sool iyo Sanaag ma garba arrintaas walaaca ay ka qabaan dhinaca Puntland waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo aan weydiiyay bal hadda sida ay waxay ku diidan yihiin iyo sababta ay qabaan ila dhageysta labadiinuba waxaan ku diidanahay in laba dowladood sida loo wada hadlo Soomaaliya iyo Soomaaliland baan ka diidsanahay waxaan ognahay ama aqoonsanahay dastuurka meelgaarka federaalka Soomaaliya wuxuu aqoonsan yahay hal entity ama hal dowlad oo jirta dhammaan Soomaaliya number 7 ka jira maaragtay controlsha ama daciif kasta ha noqoto laakiin ma jirto wax la yiraahdo laba dowladood oo ah entity oo is-awood leh waxa kale oo aan ku diidanahay gobolada waqooyi waa 5 gobol laba ka mid Puntland dastuuriyan degmada Boqol ay u hoos yimaadaan dhulkii anaga mas'uuliyadda kana waxna lagama weydiin shir gaar ah iyadoo marka xuduudda Ingiriiska loo tixgelinayo shirka ay ku yeesheen Djibouti waa arrin taabanaysa maartay deegaan ahaan noo taabanaysa wadada ahaan noo taabanaysa sida weeyaan oo qaranimo noo taabanaysa laakiin waxaad carabka ku dhufato tirina lagama talagelinin markaad leedahayna lagama talagelinin Puntland miyaanay ahayn qayb Soomaaliya kamid ah oo hoos tagta dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaad isaga dhigaysaan idinka qudhiinu entity gooniya idinkoo cid ku eedeynaya entity gooniya in iska dhigayso waxay imaanaysaa waxa weeyaan meesh walba ciidu waliba mas'uuliyad bay wax ka haysaa dadkeeda iyo dowladda ay ka tirsan tahay dadkeeda mas'uuliyadeeda iyada qabta dowladda federaalka waa ka tirsanahay oo dastuurka iyaga ay ku cadahay laakiin wax ilaa xad dastuurkani maaha dastuur ee maaragtay wali si buuxda afti loogu qaaday dadka waa ka horreynay Puntland ismaha dowladda federaalka waxay doontaba ha noqoto dhulka Sool iyo Sanaag la yiraahdo 3 gobol oo qayb kamid ah waa dastuuriyan Puntland annaga toos noo taabanaysa markii masaalixda Puntland ay taabanayso dastuurka kumeel gaarka baa noo fasaxay inaan qayb ka noqono wax kasta baa noqotay dibadda ha noqotay ama gudaha noqotay haddii aad tidhi dastuurka kumeel gaarkii ma dhammaystirna oo dowladda uma siinayo sida hadalkaaga ka dhadhamaysa awood buuxda inay ka hadasho gobolada aad leedahay waanu ku muransannahay dhinaca kale sow adigu haddana marka aad wax doonayso isagii ma soo cuskanaysid oo ma soo xiganaysid halkaa miyaanaysa see ka muuqan سيب وحوية خبام وقدوس وحوية دولة حتى مسؤولية تدخل لغوها الله يكره وقيل حتى شيء ما رأيتي قارة مجرته تسارعان سيادة ذلك هي سفرين التقع إذا مقعدت إذا كما وريتين كرتو على بس تدكال ساي هايستان وكالة رسمية sababtoo waxa weeyaan baarlaman maaragtay waqtigiisii dhamaanaya dawladda xilligeedii dhamaanayso arrimaha ma kala hadasheen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay tahay cidda ugu habboon ee ay ahayd inaad iyaga kala hadashaan dawladda federaalku wax kale aan nagama ay gelin sida ka muuqatayna shirkani wuxuu ahaa shir ay wateen Mareykanka iyo European Unionka iyo maaragtay gobolka shir saas oo ahaa shir maaragtay Soomaalida iyada awood u leedahay wax laga weydiinayay ma jirin wada hadal la hadda dawladda federaalka oo ka waraysaa muddo hadeer سياسيا ولا تشرنا ولا هذا اللي بعد ولدها قبل دضايا بهاين
arrintaa dowladdu waa ka warwareegaysay annagu waxa weeye arrintaa waxaan u aragnaa inaan arrintaasi aanay sax ahayn waxayna inay saxayn oo ku daraysa natiijada ka soo baxday waxaad diidan tihiin ma aha inay Soomaaliya iyo Somaliland wada hadlaan waxa weeyaan waxaad diidan tihiin in xukuumad xilligeedii dhamaanaysa aanay idinka talagelinin ma sidaasa even haddii dowladda federaalka ay fasax u haystaan waa inaan ogolaasho u siinaa waa inay qayb ka noqdaan dadku reer waqooyigu laba u qaybsan yahay haddii loo dhigayo dhanka waqooyi gobollada waqooyiga ee la midooda koonfurta waa in mas-uuliyiin ka soo jeeda oo wadata dadka kalsoonidiisa oo ah wasiirada iyo xildhibaanada yaa xaq ay u lahayn inay fadhiistaan meesha waxaa laga doodayaa waxa weeye taariikh baa laysku hayaa taariikhdana ciddii ka hadli lahayd ku habboonayd waa dadka laga soo bilaabo ilaa lagu caddo ilaa degan mariga sanaag dalkan Soomaaliya kulligeed dowladda dhexe iyo maaragtay sharciyan ciddii joogtaa ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayuu kaasi ahaa oo sidaasi dooda Puntland isaguna marinayay bal waad maqlaysay dooda odayga labadiinuba waad ila dhageysanaysaan labadiina xildhibaan Sharmaarke Garaad Saleebaan baan siinayaa dooda Puntland garma kula muuqata dowladda Puntland markay noqoto gobolada Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle dhinaca garbi u leeyihiin dadkaasi 1998 waxay wax ka dhisteen Puntland asaaskeedii bayna wax ku lahaayeen halkaasayna wax ka saxeexeen anigu ma aaminsani Somaliland inay dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Buuhoodle wax ka dhisteen waayo abti lagama qaadin hore waxay u lahaayeen oo u wadaageenna runtii ma jirin hadday qadiyadihii xorriyadda raadinaysay ay tahay waxaa kagama midaysnayn sidoo kale dadka deegaankaasi Somaliland dhibaatay u geysatay oo dagaalkii Kalshaale waad ogeedeen ka dhacay Buuhoodle duleedkeeda dad shacab ah oo dhowr boqol oo qof gaadhay ayaa lagu xasuuqay marka anigu waa la qabaa gudoomiye ku-xigeenka qodobada ka midka sheegayo laakiin hal arrin waa laga yaabaa inaan ku kala aragti duwannahay guddigan hadda wada hadalka iyo guddigii darwiishaysiinta oo madaxweynuhu 2019 magacaabay waxaa ka mid ah Cali Jaamac Jangeli oo la yaqaano oo deegaanada ka soo jeeda historyga taariikhdana wax weyn ka haya macna arrintan hawada uu ka hadlayo saaxiibka Axmed Yaasiin markii ugu dambeysay waxaa ka wada fadhiistay shirkii ugu dambeeyay Cali Jaamac Jangeli oo wasiirka duulista hawada ah iyo Maxamuud Xaashi oo aan hadda wasiirahay oo wasiirka duulista hawada ah garaad Sharmaarke xildhibaan Sharmaarke Garaad Saleebaan ma doonayo inaynu ku noqono taariikhdaas arrinta aan ku weydiiyey waxa weeyaan dooda Puntland in ay iyada si toos ah looga qayb geliyo wada hadalladaas oo ay ku qasban tahay xukuumadda federaalku ma garbaad u aragtaa mise waa maya wixii kale lagu heshiiyey taariikhda inaan dib ugu noqonay Puntland hadeer guddigan wada hadallada waxaa ku jira laba xubnood oo ka soo jeeda Puntland waxaa ku jiray xeelaliyaha guud oo qaranka oo deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland iyo gudoomiyaha guddiga dib-u-heshiisiinta guddiga dastuurka arrimaha dastuurka afrax oo isaguna ka soo jeeda Puntland marka Puntland haddii ay matalaad ku rabtay aan waxaan aaminsanahay sida uu gudoomiyuhu ku doodayo dad ugu jiray waa jireen oo ku fadhiyey miiska oo Puntland ku matalayay xaq bayna u leedahay inay deegaanada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo ay Somaliland dhibaatooyin badan ka geysatay inay arrinta qadiyadeeda uga hadasho taasna xaq bay u leedahay Puntland aad iyo aad baad u mahadsantahay Sharmaarke Garaad Saleebaan xildhibaan aad baad u mahadsantahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland ayaan hadalka siinayaa imika waad dhageysatay waraysigii arrinka odayga la yeeshay mas'uulka iyo doodiisu siday ahayd ma idin muuqataa adigu waliba shakhsiyan in ay arrintaasi gar tahay oo ay Puntland tahay garab ka noqoto dhinac ka noqoto cidda wada xaajoodkeedii la galaysa horta adduunyadu dee sibay isu calaamadisaayo ay xuduudda u leedahay oo ay u aqoonsan tahay dee intii xuduudda ku jirtaaba inay isir gaara leedahay Somaliland xuduud la yaqaano oo mucayyana bay leedahay oo uu ka tegay gumaystii dalkan ay qaybsaday gumaystii African Unionka charterkooduna sidaas u aqoonsan yahay dadka deegaankuna waa dad qaybka Somaliland asaaskeedii iyo dhismaheedii iyo tan maanta u talinaysaba Puntland anagu waxaan u aqoonsanahay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee aan dariska nahay walaalaha dowladnimada Somaliland de waa wax buuxiye shuruudii state looga baahnaa adduunyadu ay adduunyadu iyada u samaysatay qodobo caalami ah oo la yiri qodobada cidii buuxisaa waa dowlad baa loo yaqaan waxa kamid ah in dalkaasi leeyahay population joogta ah
waxaa ka mid ah inuu dalkaasi leeyahay dowlad shaqaynaysa waxaa ka mid ah inuu xuduud mucayana leeyahay xuduuddii mucayinka ahayd ee adduunyadu aqoonsanayd somaliland entitiga la yidhahdaa waa xuduuddii mustacmaradii ingiriisku gumaysan jirtay ee xorriyaddeeda qaadatay 1960 marka annagu nooma muuqato kaalin ay wada hadallada si toos ugu yeelan karto gobolladaasi ka tirsan Soomaaliya haddii iyagu ishayaan Soomaaliya iyo dowladooda federaalka iyo maamulkooda hoose waan jeclahay inay dhammaystaan ay xalistaan oo iyaga u taalaa inay xalistaan laakiin annagu waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa Somaliland Soomaali kama maqnaa way u maqan tahay dowladnimada Somaliland oo taam noqotaa Soomaalida heel bay u tahay walaalnimo u tahay Djibouti la dhacaysa cidlada ku joogtay garab u noqonaysa Soomaalida la baabi'inayay wax ka dabayaaqaynaysa Somaliland oo dowlad madax bannaan noqota codka maanta Kenya kaga guuleysanaysa Djibouti waa cod ka maqan oo codkii Somaliland halka ka maqan marka waad mahadsantahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali waan soo noqon doonaa arrimaha ama wada jirka ama kala taga bal hadda qaybta dambe aynu ku eegi doonaa odayaale bal hadda waxaad ila dhageysataan qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo iyaguna bal hadda dareenka ay ka qabaan doodeenan cabiraya السلام عليكم BBC magacaygu waa Khalid Khadar Ali shirka Djibouti ka dhacay u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya aniga aragtida waxay la tahay inuu yahay shir si wanaagsan u bilaabmay kana duwan shirarkii hore ee dhici jiray laakiin muhiimadda shirku waxay noqonaysaa in labada dhinac ee wada hadlaya ay daacad ka noqdaan waxyaabaha lagu heshiinayo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka Soomaalidu iyagoo mid ah oo walaalahaya haddana kala dawlad noqon karaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانكم السلام الدادية برنامج كي يضمان مرتدى برنامج كبا مقعي هو بدري عبد الله إبراهيم وكسورك تديمين مقالة بورما كنا هانتي آديات بان أسور دويني ولا هذا الله كسعودة دالك جبوتي أو دحية دولة فترة الصومالية إيا سومالي لان وحانا رجيني يا إنا كسو بحي دونان قضب بدحل قلا أو دمان ومدى الصومالية دي كورين دونسو annagu haddii aan nahay dhalinyarta Soomaaliyeedna iftiif noo noqon doona aanan ka bixi doono waqtigii adkaa ee Soomaali ku jirtay aad baad u mahadsantiin BBC magacayga waa Cadaawe Axmed Macali Cali BBC waan salaamay dhammaan ka qaybgalayaasha doodda sida ay ila tahay aniga kulankii Djibouti ka dhacay waxa uu fursad weyn u ahaa runtii Somaliland oo runtii fursad ugu weyn ay heshay waxay ahayd in deeqaha caalamiga ah iyo barnaamijyada horumarineed oo dhan in ay si toos ah ay u soo galaan gacanta Somaliland sidoo kalena hawada Soomaaliya ay wax ka maamusho fursadahaas badan ay runtii ka heshay kulanka Soomaaliyana wax faa'iidaha ugu jiray kulankaas ma jirin Somaliland kaliya ayaa fursadaas ay ku ekeed oo ka faa'iideystay waxayna ila tahay aniga labada dhinac marka ay si daacad ah u wada hadlaan oo wax la isku hayo ay abaaraan ayaa guusha la gaari karaa laakiin hadda waxa mood السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعد الرحمن حاجي محمد ودوغ مقالة مقدشو هدي أنا فكرتيني كديبتو ضمانتا إيه شركي كدعي جيبوتي ولدحي Soomaaliya iyo Somaliland runtii waa bogaadinaya in Soomaaliya iyo Somaliland ay yeeshaan wada hadallo ay isku soo dhawaanayaan balse waxaan aad ugu dheerinayaa dowladda Soomaaliya oo mar hore looga baahna inay wada hadalaan soo bilowdo balse dib ay u dhigtay sidii cadna ay tahay mid ay doorasho geli doonto waan ka xunahay in dowladda Soomaaliya xilligan ay dhahdo waxaan wada hadal la furayaa Somaliland oo intaasoo sano soo qaadanaysay inay hesho xorriyad la'aanta warahmatullahi wabarakatuh magacaygu Saad Sheekh Maxamed oo ka soo hadlaya magaalada Boosaaso haddii aan fikirkayga ka dhiibto wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland waa wadahadalladii ugu qiimaha badnaa ee abada isla galaan ra'yi ahaantayda waayo waxaa meesha ku jira dowlado caalami ah oo adduunka quwad weyn ku leh sida Maraykanka hada dowladda aan ku tiirsanahay ee aan walaalaha nahay ee Djibouti aad baan ugu ammaanayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha BBC-da aragtidooda ka dhiibanaya iyaguna dooda odayaashu fadhiyaan aanu maanta gorfaynana ee ku saabsan wada hadallada labada dhinac Somaliland iyo Soomaaliya ay ku yeesheen Djibouti waxaynu u gelaynaa haatan Sharmarke iyo Axmed Yaasiin oo bal hadda qodobkii adkaa ee markii hore aad labadiinuba carabka ku dhufateen ee ahaa hadiiba la wada hadlayo oo labada dhinac ay ogol yihiin inay is hor fadhiistaan maxaa looga meereysanayaa arrinta masiiriga ee adag ee ah war ma wada joognaa mise waynu kala tagnaa arrinta dhaliisheeda iyo cidda ka meereysanaysa iyaad ku sheegi lahayd Sharmarke Garaad Saleebaan oo xildhibaan walaalo waa maanta
tahay waa su-aasha ugu muhiimsan horena waanu carabaabay anigu waxaan aaminsanahay somaliland arrintaa inay ka warwareegayso sababtay uga warwareegayso waxaan aaminsanahay dadkeeda 30 sano inay wax dhalanteed ah oo aan jirin u sheegayeen xorriyaddii ay u xireen haddeer dad badan oo hargeysa ka yimid iyo burco ay maanta joogaan muqdisho noogu yimaadeen arkaan xaqiiqda dhabta ah waxay tahay waxaan kaloo odhan karaa deegaano somaliland dadka somaliland deegaan gobollada somaliland laisku yidhaahdo sidaad ka warqabtid waa 6 degmo ama waa 5 gobol oo soomaaliya ka tirsan waxaan aaminsanahay majority maanta inay midnimada aaminsan yihiin khaasatan anigu deegaanka aan matalo oo sool iyo sanaag iyo buuhoodle midnimada aaminsan yihiin sidoo kale walaalkay axmed yaasiin deegaanka uu kasoo jeedo awdal waa dad aaminsan midnimada ummadda soomaaliyeed marka waxaan aaminsanahay haddii arrintu masiiri noqoto oo ay midnimo noqoto ay somaliland aada uga warwareegayso iyada oo ama koox gaara ama deegaan gaara ay doonayaan inay wadahadalladu dheeraadaan si aysan kursi ama waxaan hadhow soomaali dhexdeeda uga cuntumi karin ay ku helaan marka anugu arrimahaasaan qabaa dadka gobollada sool iyo sanaagna anigu waxaan aaminsanahay inay dad midnimada jecel dhibaatooyin badan loogu soo geystay ugu dambeysay dagaalkii karshaale oo marka waxaad leedahay marka waxaad qabtaa xildhibaan sharmarka waxaad qabtaa cidda aan ku dhiiranayn inay tahay dhinaca somaliland in arrinkaa laga hadlo oo lasoo hadal qaadaba waad mahadsan tahay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle waad maqlaysaa dooda xildhibaan sharmarke garaad saleebaan iyo sida uu sheegay uu faahfaahiyeyba maxaa idinka hortaagan inaad arrimaha ku dhiirataan oo lasoo hadal qaado cidda dhiirane arrintan la soo taageer horta waa somaliland sida sharmarka sheegaya aniga iguma muuqato somaliland ciddaasaa ogol iyo ciddaasaa diidan mar horey caddayso 2001 bay u dareertay afti dastuur uu ku qoran yahay madax bannaanida somaliland waa muqaddas 790 bay dadku ugu codeeyeen markay timaado waa arrintan cidda afduubaysa adduunyadu indhala'aan wax laguma marsiin kare adduunyadu indhay leedaho farsamooyin lagu hubiyo waxaan iyaa diidan iyaa ogolba yaa la qaadaa masalan dalalkii naga horreeyey ee aqoonsigooda helay ee dalalkii ay ka midka ahaayeen ay kala noqdeen eritrea ka mid ahayd oo dee aftiba laga qaaday waxa ka mid ahayd south sudan oo aftiba laga qaaday east timor baa ka mid ahayd oo aftiba laga qaaday somaliland diyaar bay u tahay hadduu caalamku u qancayo dadkani maxay doonayaan laakiin axmed yaasiino waan kaa dhex gale dood baa jirta ah in aanay gobollada somaliland ee weliba bariga sool iyo sanaag qaybo ka mid aanay ka dhicin aftida aad sheegaysa markaa may xalaalaynaysaa doodaada arrintaasi somaliland sool iyo sanaag waa dal somaliland ka mid oo gobollo somaliland ka mid waxaan kuu sheegaya axmed nagaashiow xuduudda somaliland iyo soomaaliya u dhexaysa somaliland cudud ciidan may dhigan oo kumay kala jareen dadka deegaanku iyagaa raalli ka ah somalilandnimada iyo inay somaliland qayb ka yihiin somaliland mar aanay gacanteeda ku jirin oo sool weliba khaasatan laascaanood ay puntland oo kale xukumaysay waa jirtay dadka deegaanka maanta la weydiinayaa waktigii somaliland maamulkeedu aanu gaadhin iyo maanta halkay kala marayaan iyo dantoodu waxay ku jirta maanta iyagaa garanaya oo waa la weydiinaya taasi iyada ku murmi mayno gobol baa diidan iyo gobol baa kasoo jeeda damaasho waxa weeyaan adduunyadu waxay ku kala baxdaa waddo cad oo loo qaado ciddii madax bannaani doonaysa soomaalidu waxay ku maamaadaa qoolay qoorqabasho kuma biyo cabto dadka somaliland degani 99% waxay ogol yihiin dowladdoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii inay soo ceshadaan taasi miyay suurogeli mise suurogeli mayso waxaa suurogeli midnimo khasab inta lagu kaxeeyo dadka lagu khasbo oo lagu caqliga biniaadanka saliibkii uu fahmaya waan gartay istiraatiijiyada ilaahay dejiyey iyo halka ay taallo 30 sano saaxiibkay ka dhawaajiyey marka state laga hadlayo dowladnimo marka laga hadlayo 30 sano waa 3 jir wey dhinkayda 10 sano sanad baa laga soo qaadaa cimriga dowladaha nooma muuqato waqti badan oo lumaya waqti badan oo wax ku qabsanay baa nooma muuqata waan gartay axmed yaasiin aan kaa dhex galo aan dhamaystay dagaalka aqoonsiga aan ugu jirno waxaan u doonaynaa inaanu waddo salmiya oo soomaalinimadu aanay nagaga dhiman oo nabadgelyo aan ku helno aqoonsiga iyaga laakiin aqoonsi haddaanu u baahano dee waddo kaloo khatar badan baa loo mari karaa oo aanaan doonayn inaan waddadaa ku degdegno waad mahadsantahay axmed yaasiin waad mahadsantahay axmed yaasiin sheekh cali ayaale aan kaa dhex galoon hadalka kaa boobo mar kale sharmaarke garaad saleebaan xildhibaan waad maqlaysay su-aal aan si kale u dhigay oo isla arrintaa khusaysa aan ku weydiiyo marka aad qiimayso guud ahaanba xaaladda soomaaliya iyo duruufaha siyaasadeed iyo wadciga jiraa siduu yahay
miyay kuu muuqataa inay tahay haatan xilligii lagu dhiiran lahaa in la yidhaahdo midow ama kala tag aynu ka wada hadalno? horta walaal dastuurka kumeelgaarka dowladda federaalka iyo ummadda soomaaliyeed iyo gobollada uu ku doodayo uu leeyahay waa somaliland oo 1991kii bay go'aansadeen inay go'aan. horta anigu taariikh ma hayo 1991kan somaliland ku go'aansatay. way caddahay taasi inaad ku kala aragtid, way ku caddahay inaad ku kala aragtid duwantihiin taasi, waana taynu weydiinay wadciga maanta jira marka la eego miyay suurtagal tahay in arrimaha laga hadlaa? arrimaha in laga hadlo oo weliba midnimo laga hadlaa aad bay muhiim u tahay. waana arrinta aan sugayno, waana arrinta anigu deegaanada aan xildhibaanka ka ahay aad loogu dhibaateeyey, dib badanna ka soo gaareen, in badanna ay u sameeyeen. sidaa uu sheegayo saaxiibkay runtii afti meel lagu qaaday oo sooliya sanaagii buuhodlaana ma jirto. maxaan ku idhahdaaye somaliland meelay dowlad hore ku ahayd oo calan iyo sharci iyo aqoonsi caalamiya midna ku haysatay hadduu histori ahaan iyo taarikh ahaan keenayana waa keeni karaa. ma jirto iyaduna, saasaan aaminsanahay. marka arrintaa waxaan aaminsanahay in arrimaha wasiiriga ah si dhaqsaha badan oo 45 casho loo qabtay in lagu dhiirado ugu yimaado midnimadana laga wada hadlo. haddii su'aal kale lagaa weydiiyo taa xildhibaan sharmaarke garaad saleebaanow oo aad adigu leedahay waxa quman in laga wada hadlo midnimada, ma aqbalaysaa qudhaadu in laga wada hadlo kala taga? marnaba midnimada ummadda soomaaliyeed khaasatan gobollada waqooyi dad yar oo tiro yar oo koox yar oo doonaysa in afka noqoto macquul ma noqonayso. hadday afki noqoto iyo hadday noqoto inay iyagu afka caburiyaan oo afka qabtaan. marka anu waxaan aaminsanahay in midnimada dowladda federaalku ay u tanaasushay somaliland inay la wada hadasho, iyadoo aanu anagu aaminsanayn inay tahay cadaalad darro in koox yar lala hadlo. marka saa darteed anuga ogolahay midnimo laga hadlo. wixii ay walaalaha iyaga burco iyo hargeysa dega togdheer iyo waqooyi galbeed ay ku midoobayaan oo midnimada ummadda soomaaliyeed kaasoo raacayaanna diyaar baan u nahay in laga wada hadlo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan sharmaarke garaad saleebaan. axmed yaasiin sheekh cali ayaan le waad maqlaysaa inuu xildhibaanku leeyahay waxa habboon marka la eego xataa wadciga siyaasiga ee maanta guud ahaanba dalka ka jira inay habboon tahay in laga wada hadlo midnimada iyo wada jirka. idinku maxaad ku doonaysaan ee aad ku qiimaynaysaa in laga wada hadlo kala taga? horta mar labaad aan garaadka xasuusin laayaa garaadaan idhaahdo taariikhda waxaa la yidhahdaa ingiriiska wax maamaha historygu iska soo noqnoqdaa 60 sano kadib baynu ka wada hadlaynaa garaadkiiba muqdisho jooga oonana leeyahay maanta laayaa garaad. horta taasaa kuugu filan inaan taariikh iyo dowladnimadii somaliland iyo aqoonsigeedii iyo madax banaanideedii iyo waxeediiba aan halkaa kuu dhigo. ta kale labaad si kale balan inaan garaadka wadada xusuusiyo bal wax kale dhacsiiyaan isku daya somaliland shantii soomaaliyeed ee midnimada lala doonayay bay ka mid ahayd oo intii ingiriisku gumaysanayeyba tii talyaanigu gumaysanayna waa taa maanta la baabi'iyey soomaaliya uu garaadkiina dhex joogo. tii etoobiya ku jirtayna maanta dastuurka dowladda federaalka etoobiya qodob baa si cad u qeexaya gobolkii u baahda gobollada federaalka etoobiya inuu madax bannaanaadaa xor buu u yahay. maalin baa iman doonta garaad dowladdii soomaali galbeedna cod laga qaado ay madax bannaanaato. jabuutina halkanay dowlad inoo tahay, somaliland halkanay dowlad ku tahay. soomaaliyada bal maanta godka lagu rido anigu ma arkayno meel lala midoobe taa godka ku jirtaana insha allahu maalinta kasoo bixi doontaayo dalal soomaaliyeed oo walaala ah oo mid waliba caalankiisa iyo xuduudiisa iyo ciidankiisa leeyahay haddana gawso waraabe guda ka xidhiidhsan oo hoosta iskala socda oo dee dhiig baa inaga dhexeeyo, dhaqan baa inaga dhexeeyo, diin baa inaga dhaxaysa oo maamulada iyo markaynu midnimadii ku baaba'naye warba laba dal oo walaalaa oo isbarbar yaalla oo soomaaliyeed oo midba calankiisa iyo aqoonsigiisa iyo dowladnimadiisa haysana aynu dayno annaga waxay nala tahay wax meelgal ah, wax maangal ah, wax danta soomaaliyeed ku jirta oo maanta ururka igad majority soomaali baa ku yeelan markii somaliland aqoonsigeeda hesho oo waxay noqonaysaa vote baa dunida lagu kala baxaa. waan gartay axmed yaasiin waan u soo noqon doonaa taas iyo wixii tanaadee ka imanaya aragtidaada aad qabto haddiiba la yeelo siday noqonaysee. bal aan xildhibaan sharmaarke garaad saleebaan mar kale ku noqdo. xildhibaan sharmaarkow waad maqlaysay dooda saaxiibka axmed yaasiin sida uu dhigayo, adiguna sida kale aad u dhigaysa. haddii labadaa daraf ee aadka u kala fog la joogo ummaddiina aad arkayso in ay dad yihiin isku dhaqana, isku afa, isku diina, xalku muxuu noqonayaa bay kula tahay adiga?
ee aan labada aragtiyood ee kala fogahayn wadahadalladan hadda ee socdaaba runtii aan u arkaa inay xal noqon doonaan wadahadalladan hadda bilaabmay waxaan aaminsanahay kuwii hore inay wax badan kaga duwan yihiin warmutiyaadkii rasmiga ahaa kii maalinkii dhaweyta soo baxay wuxuu ahaa meeting of minitiskii la qaaday oo ay gudiyadu ku wada hadlayeen laakiin warmutiyaadkii rasmiga ahaa dowladda jabuuti oo ku mashquulshay xubintii security councilka ee kenya ay ku tartamayeen baa dib u yara dhigtay marka insha allah waan ka warsugno horta warmutiyaadka saxda ah oo laga wada hadlay qodobadan hawada iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada oo ay dowladda federaalka iyo somaliland oo muusena siduu carbaabay markuu hargeysa yimi in la isdhex galo siyaasiyiin fanaaniin odayaal dhaqameed intuba ay isdhex mari karaan oo bal laga furo dadkan containerka ku jira ee hargeysa iyo burco iyo boorama jooga inay ummadooda soomaaliyeed iyo walaalahooda ay arkaan balqaybka ay u fakerayaan iyo boholyowga ay u qabaan waan anigu aaminsanahay marka waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed iyo maanta adduunka oo dhan ba geopolitics iyo geoeconomic waxaad moodaa inay socdaan isbahaysiyo midow ah oo la doonayo in wadamo badan iyo qaarado badan la isku dardaro oo ay yeeshaan hal baasaboor iyo hal lacag ay yeeshaan iyo hal cashuur marka iyadoo adduunkiisaa u midoobayo maanta in la yidhaahdo soomaaliya oo aynu ognahay geeska africa halkay kaga taalo in la yidhaahdo labaha laga sii kala dhigo runtii wax logic ah maaha aniga xaqiiqatan sharmarko haddii dadkayna dhegaysanaya xildhibaan sharmarko qofkayna dhegaysanaya su-aal buu aragtidaada iska weydiin karayaa oo odhanaysa haddiiba sidaa aad doonayso inay dadku isdhex socdaan oo aan la kala xidhnaanin la isdhex socdo sida wadamada aad sheegaysa oo xataa isku socodku aanu joogsanin miyaan iyadoo laba la kala yahay saa la isku dhex socon karin qofka ku weydiiye maxaad ku qancin lahayd walaalow waa taasi dood ma noqonayso soomaaliya adduunka soomaaliya ula macaamilaan waa one government hal janal oo laga maray leedahay hal magaalo madaxda ay leedahay waa jiraan tabashada ay walaalaheen qabaan waqooyi galbeed iyo togdheer ay qabaan tabashada in laga shaafiyo annagaa diyaar u ah annagaa hadda u dhibaataysan oo runtii dib lagu haysta oo ciidan deegaanadeedii dul joogaan marka arrintaas annagaa diyaar u ah laakiin soomaaliya in la kala gooyo wadcigan iyo shacabka soomaaliyeed midna ay u malayn maayo inay cuntamayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay sharmarke garaad salabaan xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaan le waad maqlaysaa dooda xildhibaanka haddiiba ay sidaa tahay arrintu oo dadkii ay ka garaabayaan dhibtii idin gaadhay haddaad tihiin reer somaliland oo ay aqbalsan yihiin oo idiin qirayaan inaad tihiin dadkii markii horena hilowga iyo midnimada hor socday maxaa ku jaban maanta inaad wixii hore iska ilowdaan oo aad wanaaggii halkii ka bilowdaan oo dadkii isku soo duntaan horta midnimo soomaaliyeed oo muqdisho hargeysa ka dhaxaysa haddii midnimadii loo hiloobay ee la doonayay maahay taa iska ilowyeed ta kale labaad kala go haddii yani laga nahayo kala go waa ka gaalkacyo maanta yaalay magaaladii gaalkacyo laba madaxweyne leedahay laba dastuur leedahay laba dowladood leedahay laba ciidan leedahay any minute inay isku dhuftaan dagaalka dhexdhexaa uu suuragal yahay because of kubadee dastuur iyo dowlad iyo calan maaha kala go horta waa kaa kana waa laba dowladood oo 60 israacay lama hadin waayay israacoodii war bal aynu kala guranana aynu eegno weeyaan naga doodaya kale labaad waxa weeye maanta ee Soomaali kala xidhan ma jirto dadka Soomaaliya u dhashay halkiisa yimaadaan burca yimaadaan boorama yimaadaan laascaanood yimaadaan way ka ganacsadaan way ku nool yihiin waa dad Soomaaliyeed oo dhalasho naga dhaxayso laakiin dad reer Djibouti Soomaaliyeed waxa inaga dhaxayo bayagana naga dhaxeeya maaha imaka Djibouti oo aad ku tahay baaxad ahaanteeda iyo dad ahaanteeda iyo dhaqaale ahaanteeda intay leegtahay waa dawlad Soomaaliyeed oo waynu mahadinay marka annaga nooma muuqato maanta meel يعني ديراتها يكون كل نقطة يساعد Somaliland دولة نمدة تام نقطة الدنيا ده كم نقطة يو أنت كوي على تكرسي دي وحان بفهين أو Somali وجدتها بجرتو Somali نمدة كوري وسلام سو شيء تبين ويا رجني أو وحنو كل الدوانة يما ملكي وحنو كل الدوانة الدولة نمدة لكن النمدة وين نقدر حيسا أو دلشة وين نقدر حيسا أو دقيقة نقدر حياة Somali وده وحساسية إنه هاي وضعنا له عن سنة وكلمة ولكن ده وين مش مهدين وين ويسلط طابعنا إذا كلا ومدي Soomaaliyeed ee ku dhaqaneed maxmiyadii Ingiriisku gumaysanay lixdankii kalgacaylkii caadifadii hayay muqaabilkeedii deemay helin oo taasido inaan ku sii tiigaalo ku sii noqdo dooni maayo
waaye waxba yaynaan ku noqonine yaynaan waxba ku noqonine ha ku tiigaalina waxba yaynaan ku noqonina aan hadalka kaa qaato axmed yaasiin sheekh cali ayaanle gabagabadii barnaamijkaynu joognaa midkiinba hadalka in baan siin doonaa waxaan doonayaa bal hadda idinkoo laba oday oo siyaasiyiina oo muxtarama oo soomaaliya oo laba aragtiyood oo kala duwan qaba in aan bal hadda midkiinba aan dhegaysto waxa uu arko xal kama dambaysa ee dadkuna aanay isku seegayn ee ay ku hagaagayso maslaxaddu wada hadalladan soconayaana ay ku guulaysan karaan aragtidiisu siday tahay waxaan ku horeynayaa sharmaarke garaad saleebaan xildhibaan sidee kuula muuqata adiga walaalow aniga waxay la muuqataa wada hadalladan in uu sii wado la joogteeyo labada dhinacba dadku hore leh oo aqoon-yahana labada dhinacba loo saaro ajendaha laga wada hadlayana ay noqoto ajendaha masiiriga ah oo ah ummadda soomaaliyeed waxa ay sugayso wahanqa taagayso rabitaankoodana ah in runtii arrintaa lagu dhiirado waliba khaasatan ay somaliland oo hadda gudoomiye ku-xigeenku halkan iga maqlayo ay ku dhiiradaan arrintaa inay miiska soo saaraan wixii ay gorgortani la yimaadaanna runtii waxay macquul oo suurtagal ah loo sameeyo markaanu waxaan qabaa arrintaas in lagu dhiirado masiirigana wada hadallada arrinta masiirigaana miiska lasoo saaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay sharmaarke garaad saleebaan xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaa leh adiguna saaxiibkii waa salaamaya waxaa arrinta lagu dhiirado ku celcelinayo madaxweyne muuse bixiyo wada hadalladii somaliland iyo soomaaliya jabuuti qabsoomay hogaaminaya waftigii somaliland kuma dhiiran karo inuu kuma nool dhici karo inuu yidhaahdo midnimo soomaaliyeed baa qaadana impeachment baa subaxda daba yaala waa masiir waa ilaahatu shacab baa laydhaa ummad shacabiya iyaa u garatay inay noqoto dowlad gaara madaxweyne iyo xildhibaan iyo guddoomiye baarlamaan oo bedeli karaa adeer horta ma jirta taas ilo halka waxaan u arkaa war annaga nooma barbardha way noo caddahay annagu xal baanu u nahay baanu leenahay soomaali oo dhanba dowlad soomaaliyeed oo soo kordhaysaan nahay dowlad mashaakilka maanta soomaali ka taagan wax ka xallin kartaan nahay in waaqicu sidaa inoo kala gooyeyna wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya saqiyin inta la yidhaha markuu jabuuti ka hadlayay wuxuu yidhi dagaalada sokeeye soomaaliya 91kii ka bilaabay dagaalada sokeeyena somaliland 91kii bay soo afjarnay dagaaladii sokeeye statekii somaliland dadkii deganaa dowladdii maxamed siyaad barre ay hubka iskugu dhiibtay iskumaadayeen ee dowladdii maxamed siyaad barre qaybo ka mid somaliland ay bamgaraynaysay waxay soo afjarmeen 91kii baa laga heshiiyo 30 sano heshiis baa lahaa sabriyana wuxuu leeyahay 91 bay noo bilaabeen horta afkoodaanu ku kala tegnaybo dee waaqicana kala jaray waana xaqiiqadu siday tahay oo kuma xisaabta yani uguma jirno waa uun daba carar aan caadi ahayn xisaabtaba uguma jirno oo waa kaa 91kii u bilaabmay problem annaga 91kii soo afjar taasi waa taa waxaanan qabaa waa keenu idinku eg soomaalidu haddaan maanta indhaha laga tuuray waaqica jira soomaali maanta 20 dowladood baa influence ku leh oo saamayn ku leh oo madaxweynayaashooda soo saara oo siyaasadooda ka taliya oo madax bannaani ma haysato maanta soomaali haddaanay lahayn iilka aan nala dhigay walaalaha yara ha nagu soo biiraan oo ha nala galaan iilka oo aanay dee taasi walaalnimada u fiicnayn ma arkayno aad baad u mahadsantahay axmed yaasiin sheekh cali ayaa leh hadalka waan ka yara dheeraysay intii aan ku siiyey gabagabada aan siiyo xildhibaan sharmaarke garaad saleebaan xildhibaan sharmaarke maxaad kusoo gabagabaynaysaa barnaamijkiina waa gabagabe walaalo waxaan kusoo gabagabeynayaa wada hadalladaas labada dhinacba waxaan ku dhiirigelinayaa wada hadalladaas inay bilaabaan sii wadaan baan leeyahay sidoo kale arrimaha masiiriga ah miiska lala yimaado hadday noqoto qodobada laga wada hadlayo hadday noqoto qodobada laga wada hadlayo maynarka ah yaryar oo dhanka dhaqaalaha oo kale iyo mucaamalooyinka oo kale adduunka iyo beesha caalamka waxaan sheegaya sool iyo snaag iyo buuhoodle inaysan qaybtooda waxay ka gaartay in lagu dhibaateeyo oo inta loogu soo iibsado somaliland ay dhib ku samaysa mooyaane aysan neeftii iyo waxay xaqa u lahayn aysan midna gaarsiinin marka waxaan dowladda federaalka iyo maamulka somaliland ba leeyahay wada hadallada la sii wado masiirka ummadda soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda soomaaliyeed baa runtii ku jira iyo adduun iyo isbeddelka adduunka ka jira iyo kan geeska intaba in ummadda soomaaliyeed ay midowdo midnimana qaadato
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sharmarke garaad saleebaan dhegaystayaal barnaamijkii ayaan intaa kusoo gabagabaynaya waxaa igala qayb gelayay sharmarke garaad saleebaan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muqdisho jooga iyo axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo isna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan oo hargeysa jooga waxaa barnaamijka isna hore uga soo qayb galay hase yeeshee ka cudur daartay cabdirashiid xaashi sidaas iyo nabadgelyo